عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ليال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحمر والبا جعلان جلي إنه صحابتيسا ugu sheekeeyo sheekooyinkii dadkii anaga naga horeeyay. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu saxaabada ugu sheekeeyay wuxuu yiri waxaa jira ninkaas waxa Ilaahay jalla wa ala wuxuu siiyay xoolo maal buu siiyay laakiin ninkii maalkiisa iyo xoolihiisa si fiican uma isticmaalno oo naftiisa buu dulmi ka galay oo khalad buu maalka ku sameeyay Ilaahay jalla wa ala waxa sida uu rabay ku sameeyay markaas maalinta ay soo dhawaatay geeridiisii oo sariirta geerida la soo saaray oo soo koray waxa uu yiri wiilasha dhan wiilal badan buu lahaa wiilashiisa buu yiri markaas wuxuu ku yiri wiilasheediyo aaba noocee ba idin ahaa wiilashu waxay raadeen aaba kan ugu wanaagsan badan oo ahayd markaas aabi wuxuu yiri markaas aniga nolosheed intaan noolaa weligii wanaag ma sameyn markaan dhinto markaad igubtaan dambas iga dhiga dambastii markaa buu markaa iga dhiga oo dambas ilamaan dambas noqdo dambas markaan noqdo dambasteedii qaata kadibna waxaad la sugtaan maalin dabeel badan jirto maalintaas oo dabeel badan jirto markaad ogaato maalinta dabeel badan jirto qaar dambasteedii oo qaarna waxaad ku daadaysaan oo ku tuurtaan oo ku daadaysaan badda qaarna bariga ku daadiyo oo dhulka caadi ku daadiyo sababta waxa waaye hadduu Allah jalla wa ala xukumiyo oo hortiis leegiyo oo Ilaahay jalla wa ala leeyceliyo وناق لم يكن بدونه إله جل وعلا ويعذابنا لا يعذبني عذابا شديدا إله سبحانه وتعالى دان لكلمه إله يحيي عذابي دون عذاب كره ودرن مركاسا آبيه مركو انتي ويلشي سيدي آبوه ولدر دارن بيساميين آبوه دنبس بيك ديجين ويقوين دنبس بيك ديجين بدي بمالن بيلسوغن دبيل بدنا جرتي كتبوي قادن آبوه هذا وحكو دهديين بري انتي كلا أودو دنينا وحكو دهديين بدا markaas Allah jalla wa ala wuxuu xukmiyay inuu soo celiyo ninkan adoonka Ilaahay jalla wa ala wuxuu amray badda warbado wax ku jiro soo bixi dhulyo wax ku jiro oo ka har macnaha ninkan macnaha jirkiisa la soo bax oo soo bixi markaas Allah subhanahu wa ta'ala ninkan adoonka hortiisa uu keenay markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiiyay adoonkeeyo maxaa ku geystay inaad falka aad sameysay إنا سميسي وحيري مخافتك يا ربي إلهي عبسيدان كوقبي عبسيدان عبسناي باوحي إيجيسي إن أنسيدان سمي مكاس الله سبحانه وتعالى وعود بدافع الله أكبر إله سبحانه وتعالى وعود بدافع أتصبقوا كشكيي إنه الله سبحانه وتعالى أصبقوا سوء لكرو أصبقوا كشكيي إنه الله سبحانه وتعالى أصبقوا لو لما يلقوا الدار إله سنو سوء لكرو وكشكيي هذا الله سبحانه وتعالى وهو وعذر ذاتي ما دام جهل يوجيس أنتس ما دام جهل يوجيس أنتس معناه ذو حيته والله هذا درجة خوف خلدان هذا درجة خوف ظلم يسكتشرو وحاول كدك دقيق إن تكون حكم يصير ترى خوف كاشوات أما وقال أما جهنم وأيضون أما وساس أما ما تقارف الكل دعوة فالقال لمو قرم ما يس إله سبحانه وتعالى مركولكم إله سبحانه وتعالى سبحانه الله ميدون قفل بوا نفتي سبا متقنا ما إله سبحانه وتعالى وساري بسوليد والله ليال معناها سورك وجود الله ربنا قادر وحيته والله إله سبحانه وتعالى ذنوب تقدم قدام بالعفو وحاول ما نو بركة بدن يما نو وناكسن بنص شعب قفل بوا الدم بدن له قفل بوا الظلم يسمي قفل بوا خلد سمي جالس بالله أنت النوشة إله سبحانه وتعالى وكود بدافعية هرتيس وعرب أسرع أوتي إلى جل وعلا هرتيس يستاج هبين برؤي إلى سبحانه وتعالى وكود بدافعية أنت سبحانه جم جميلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.